dalka Somaliland waxaa yimaada representatives ay soo diraan United Nations iyo midowga Yurub kuwaasi oo ah kuwa Soomaaliya loo soo diro Somaliland meena suuragal noqon karaynin inay diido ama celiso inay dalkeeda yimaadaan wakiilada qaramada midoobay iyo midowga Yurub ee Soomaaliya loo soo diro oo Somaliland u sheegto inay qaabilaynin wakiil ka socda Soomaaliya oo ay qaabilayso oo kaliya ta wakiil u khaas ah oo Somaliland loo soo diro hadayna taas jirina una jireen wakiil ka dhaxeeya labada dal. Very good. Su'aal aad u wanaagsan. As a matter of fact, weygii hore aynu galo wasiir isku nimid oo aan arrintaa kaga hadlayno marka wakiilka Soomaaliya jooga waynu ognahay in uu Soomaaliya la hadlayo arrintaa iyo kiiska Somaliland uu hoos u dhigayo marka waan ka soo horjeednaa waan ka tashanaynaa imakana galo wasiiraan isku nimaanintii dhaweytooy waxaan nidhi okay aan joojino waxaan odhan marka diyaar baan nahay taas inaan ku nahay adduunyada ha noo soo dirina inuu shaqeeyo Soomaaliya waayo ninka Soomaaliya u shaqeeya kiiska Soomaaliya inuu kula imanaya marka in aanu waxaanu goosanay markaa inaanu golaha wasiirada marayno in qofka loo soo diraya Somaliland uu noqdo wax la dhahay special envoy ama haddii ay noqoto qasab in ay dowladu kari waayaan in qof ay soo magacaabaan halka uu xamar ka imanaya